ممنوع ان شر لو هذا نيروبي او شرر عادي ورك شوبيس waxaas ma jira shir gobolka oo dhan haduu ka dhacay region ka dhaqsay ama shirka laakiin shirka dawladda wala joojin Soomaaliya ku qasbay qasdi aad saan ku sheegay $100 hay'adood ayaa wadankan yiraahdo waa ka shaqeynaa oo caalami ah hay'adahan loo yaqaan NGO-yada laakiin kuwan Soomaalida ah xaruntooda waxay ahayd Nairobi markaan dawladda ku soo beernay dawladda cusub timi kulligood Nairobi joogeen qofkii Soomaali u tagay ama la shaqeynay oo Nairobi aad tigid buu soo dirayaan qofku waa baxaya wasiir ku xigeen agaasimayaal Nairobi la isku shaqeeyo hotel la dejinayo shirab lagu qabanay waxa laga yaabaa hal workshop ama seminar oo ma socon intaas boqol ku baxay tigido iyo hotel iyo consultants iyo dadka la taliyaala iyo gaas lagu jabsanay lacagta ku dhex baxaysa dhaqaalaha Kenya galay maadaama Kenya markaa si wanaagan safiirka ah oo soo maray markaanti waxaan ahaa oo arki jiray maalin kasta Soomaali dareerayso ciida ka badan 40 diyaaradood ayaa Kenya ka yimaada maalin kasta wali waxaan malayna ka yimaadaan wax ku dhow oo Soomaali yimaada 40 ka diyaaradood ay 10 ka badan soo qaadi jireen jaad أميرة ما نكسته وضنك مالك ستولك استجينا دوري توان كل حكي شغلنا كارجو ما نقول كوا أمس ومشان كوا حكلا بشغلنا كوا هذا جرجاروت كوا واحد زي مركز دورة ولا بدأ قلنا الصبح وشعب بحمل كسته بقول درس عليه تتكسو إيمانيا العد بوذا وطن شرب إيمان هوتيل نيروبي هوتيل كسو واحد أوبن وجوجا صومالي قل كسته قلك شرب ما نكسو حكوا رسا صومالي شرنا سفارده يهايده maxaa lagu shiranayaa shir mashruuc Soomaaliya ku saabsan wadan kale laga qabanayo wala keenay si darada marka wax kamid ah dadka shirarka imaanaya loo yeeraya waa dad safri karo baasaboor haysta marka qaar ku arkaysa qof 10 shir ku soo noqnoqday oo keligii loo yeeray kuwii shaqada qabanaya wadanka joogay maadaama baasaboor haysan fiisa haysan lama geeyo Nairobi nin baasaboor diaspora wata baasaboor kale wata ayaa qaadayo imaanaya marka meeshii waxyaalaha dhibaatooyinka waaweyn waxa weey waxaad arkaysaa NGO yar oo budgetkeedu iska yahay $200,000 ayaa waxay isticmaalaysaa 80% lacagtii oo ku bixinaysa waxaan loo yaqaan overhead cost ama kharashkii ku baxay la taliyaashooda wakiiladooda saaxiibadood dadkooda waxa soo finish markaan arinta aragnay marka waan soo jeeday talo madaxdan ku yiri in la ogolaado codsaday in hay'adaha la soo celiyo in hay'adii isna la shaqeynaysa wadanka shaqeynaysa Nairobi ka soo madaxa ka codsatay dalka golaha wasiirada madaxweynaha u tagay madaxweynaha fikirkii waxaan ku madaxweynaha arintaasan damacsanahay ra'iisul wasaaraha u tagay golaha saaxiibada wasiirada rag badan ka sheekaysanay gabdho wasiiraha fikirkii markii aan isla qaadanay runtii qof walba markuu dhinac baan rogrognay noo muuqat macquul ayaan go'aan ka qaadanay waraaq waan soo qoray aan leeyahay hay'ad dambe oo Nairobi joogto aan la shaqeynayna ma jirto daan soo guurin mudana u qaban tiimna oo sahray dabagala marka kulligood oo u yarnay shir baan la galnay waxaan ku niyay intaas haystaan maadaama guriga Kristaan xafiiska u Kiraysan yihiin dhowr bilood waxaan siinay iska fasaxan shaqaalihii ciidana imanayna ay intaas fursad u siiyaan soona xiran xafiisyada guriyaha wadanka yimaadaan halka guriga guriyaha Kristaan Soomaaliya 80% marka mashaariic lacag u isticmaalayeen inay ku bixiyaan hoteelo iyo guriyo iyo meel kasoo Nairobi wadanka soo galiya halka ku soo noqonaysa waxa laga helay marka inay guriyo Soomaaliya Kristaan baabuurta ka Kristaan shaqaale Soomaaliyeed qortaan waardiyada Soomaaliyeed qortaan askarta ilaalinaysa Soomaaliyeed qortaan macnaha lacagtii hatta hadii hay'adu ku bax wadanka galis dadkaaga shaqaabuurkii fiisa baahan ku yimaadaan oo ogta ciidatii wadanka waxa u baahan yahay hadda ajnabi yihiin waqti shaqaalaha oo inay shaqaale soo qaato work permit-ki cashuurna bixiyaan way wixii income soo galo si kale hadda wadanka dakhli baa soo galay marka intaaba Kenya ku bixi jirtay sababta waxa weeye xogta ogaanshii horaan ogaa markaan imaan arkay xaalad say tahay sanadkaas waxaan soo saarnaa buug cadeynaya gargaarka wadanka soo gala faahfaahinaya
waddanka soo bixiyay qolo kasta waxay sheegay tiri aan Soomaaliya ku bixiyay ma noqdeen hay'ad bangi oo kale ama ha noqdeen safaarado ama wadamo kale marka fiirsan marka $2 bilyan $3 bilyan baan Soomaaliya ku bixin Soomaalidana fiirsay xaaladdan ku sugan oo og tahayna wixii ka socda Nairobi qofkii damiir leh xishoonaya macnaha waxyaalo badan marka fiirsan marka kuma siinayo inaad si ogolaatay xaaladdan lagu sii jiro waa soo guureen marka naqaylayaan oo waxay sameeyaan oo iyaga laftooda dawladda Kenya dad badan arintii dad nimca iskaga jira waasaas soo guuraan hadii kale shaqo ma jirto wala soo guur maanta hay'adan u baahano meelahan degan tahay ama waxay degan yihiin gobolada waddanka kala guureen ama xamar bay joogaan oo noo imaanaya أنا وياه بدل كي وسير ما بتشوف ممنوع حتى أنا وياه وضع على ممنوع إن شر له هذا نيروبي أو شرر عادي وكشوبيس وحسب مجرى شر ده قبل قدام دوك دعاء ريجن كورة خسائر ريجن كورة خسائر مش شركة لكن شركة الدولة ولا جوجين الصومال خسارة يخزين هذه هذه مركزات ضحنا الناي معنا يو إن كهلا هذا يو أنا كو حاجة ليرة FSNAU هذا FAO برنامج مشروع كان نوري هذا إن تصور يعني تاي مشروع ير أيها الشيء نوري لكن هو يراته هاي جوك تمشرت هذه هو دم dadkii shaqada qarmadii Soomaaliya wax tara ka shaqeeyeen dadkii expertiga dadkii hay maxaad saarna reeyay hay'adii danikii didaad anagu Soomaaliya anahay wadanka soo anaga iskale saarmo ninkan uga shaqeyneen qorshaha noo qaran iyo siyaasadeed ku shaqeyneen deewa ma hasan yahay meelka ka shaqo ka raasan kara wadanka badan dad kale Soomaaliya oo qalma shaqooyinkan dad fara badan Soomaaliya marka shaqo ku helo oo meeshii ninkaas u diiday meeshii ay ka baxeen ajnabi walaal gabdho Soomaaliya ka shaqeeyay maanta wadanka jooga oo runtii waa qiyaasi kartaa qof wadankiisa jooga lacag fiican lagu siiyo nabadgelyada qayb weyn ka qaadanaysa